بسم الله الرحمن الرحيم maalintii hore waxaynu ka hadalnay sharcigu wuxuu yahay iyo waxyaabaha aynu ugu baahannahay iyo sharci la'aantiina aanay waxba soconayn iyo baahida keento qofka bini'aadamkii morality-ga lagu kaaftoomi waayo marka maanta waxaynu ka hadli doonaa wax la yiraahdo grounds excluding criminal responsibilities amba wax la yiraahdo asbaabul mawaanic al-mas'uuliyah al-jinaaiyah waxyaabaha qofka ka reeba mas'uuliyadda ciqaabeed kaba soo qaad isagoo qofkii falkii galay oo faldambiyeedkii sameeyay oo wix elementiskii faldambiyeedka lagu helay ayaa hodana mas'uuliyadda ciqaabeed qofka ka dhacda maxaa keenaya waxyaabaha keenaya waxa kamid ah horta inta waxyaabaha ugu muhiimsan qofka si guud weyn u sheegi doona detailska iyo qodobada laakiin waxyaabaha qofka isagoo faldambiyeedkii ku dhacay hodana mas'uuliyadda ciqaabeed uga dhacaysa waxa keenaya qofka horta wuxuu waayay wax la yiraahdo idraaga macnaha amba iraadada macnaha doonista iyo garashada falkan uu sameeynayo qofku markuu waayo ayaa faldambiyeedkan ciqaabtiisu ka dhacda haddaba waxyaabahaasi waxa kamid ah amba ugu muhiimsan dhowr shay oo iyaga laftoodu si baahan qayb kamid ah dadku iska fahansan yihiin bulshaduna kulli waxaan filayaa macluumaad ku filan way ka haysataa laakiin ta ugu muhiimsan waxa kamid ah horta qofku inuu waalan yahay mas'uuliyadda qofka way ka rafcisaa waxay soo gelaysaa mawaanic al-mas'uuliyah al-jinaaiyah soo gelaysaa waxyaabaha qofka mas'uuliyadda ciqaabeed isagoo faldambiyeedkii sameeyay ka saarta oo meesha ka saarto macnaha qofkii iskii loogu qaadin mas'uuliyaddii iyadoo mas'uuliyaddii wali meesha taale laakiin ciqaabtii mas'uuliyadeeda shakhsiga ahayd qofka way ka dhacaysaa qofku markuu waalan yahay haddaba waalidii baa laba wali waxa jirta absolute oo qofkaas si loo gartay in aanu lahayn capacity qofka miyir loogu tiriyo amba miyir qab taasi oo isla garan laakiin waxa jirta wax la yiraahdo al-junuun al-munqati wax la yiraahdo waalida googooska maxaan ka wadaa waxa jirta qofkani xilli kasta ma waalna laakiin xaaladaha qaar bay doogtu ku soo kacdaa marka haddii xilliga ay doogtu ku soo kacdo ay hadday isku beegbaan xilligu faldambiyeedka geysanaya qofkaasi wuxuu u baahanayaa xaqiijin ka xeel dheer qofkii waalida marka hore absolute-ka loo ansixiyay marka qofkii waa in toos xilligaasi ma ahayd xilligan uu faldambiyeedka galayay xilligii xaaladda doogtu ku soo kacay ma tahay marka taas waa arrin sensitive oo ka duwan marka waa in loo diraa dhakhaatiir caafimaad oo khibrad u leh si ay u soo cadayso qofkaasi markuu faldambiyeedka geysanay inay ku soo beeganto xilligii qofkaasi waalida googooskii ku soo kici jirtay talabaad ku sii xigta wax weeyaan qofku inuu yar yahay waynu garan karnaayo dastuurku wuxuu sheegaa age qofka aan loogu tirin karin inuu qaangaar yahay taasi markaa yaraanta caadiga ee age-ka ayay ku xiran tahay tu labaadna way iman kartaa qofku isagoo oon daahan qaangaaray buu mactuhu noqon karaa oonu legal capacity qofku u yeelan karin faldambiyeedka inuu fahmo takale ku sii xigta wax weeyaan wax la yiraahdo ikraaha amba qasabka haddaba qasabku wax weeyaan qofka haddii faldambiyeed marka hore sideeda loogu qaadi lahaa hadduu geysto imika aan loogu qaadayn wax weeye qofkan waa la qasbay macnaha waxa laga qaaday doorasho kasta uu kaga maagi lahaa amba kaga joogsan lahaa faldambiyeedkan inuu sameeyo marka waliba marka waxa la eegayaa isku dhignaanta xaaladeeda xaaladdu kaga baaqsan karayay karaahiyadan amba falkan ikraaha ku dhacay ee qasabka falku kaga baaqsan karayay iyo sameyntan falkan uu sameeyay hadiiba inuu suurtagal u tahay amba uu haysto fursad uu kaga baxsan karayo faldambiyeedka inuu sameeyo qofku mas'uuliyadii qayb uu ku yeelanaya hadii aanu qofkaasi shayga ka maagin laakiin haduu xalka amba xal nihaayi uu noqdo inuu falka ku dhaco qofka mas'uuliyadii baa ka leexanaysa ta kale ku sii xigta waxa weeyaan iyaduna wax la yiraahdo waxa jirta principles of self defense amba difaacu nafsiga waxaan la yiraahdo waxaan qofku hadii isaga oo naftiisa difaacaya faldeen oo ku kaco fal marka hore hadii loo sameeyo si xaalad maxay ahayday aanu qasab ku jirin hadii loo sameeyo qofku uu falka qaadi lahaa ay mas'uuliyaddu iyaduna ka dhacaysa marka waxa kamid ah falalka qofka waxaan jeedaa waxyaabaha qofku markuu naftiisa difaacayo mas'uuliyadda ciqaabeed ka leexinaya shuruuday leedahay lafteedu ma wax furan waxa kamid ah qofku hadii kaba soo qaadba khatarta lagu soo weeraray amba lagu soo hujuumay amba maxay hay'adeen lala soo waajahay xaqiisa iyo falcelintiisu hadii aanay isku dhignaan amba khatarta xaaladda iyo falcelintu hadii aanay isku dhignaan proportionality-ga hadii aanay isku dhignaan labadaasi qofkaasi mas'uuliyadii ciqaabeed kama dhacayso tusaale ahaan
qof baa ku soo weeraray qofka ku soo weeraray kaba soo qaadba tuug baa doonay in gurigaaga uu soo dhaco tuugaasi haddii gurigaaga markuu u soo dhaco xaalad macnaha qofkaasi uu ku tagi kara amba uu kaga baaqan kara inuu gurigaaga baadho amba in uu dhibaato ku geysto haddii kaba soo qaadba intuu qofku geerka soo istaago waryaa amba aragtidaada uu ku tagi karayo taasi waxa laga yaabaa adigu baaskoolad adeegsato amba aad hub ku dhufato mas'uuliyadii kaama dhacayso waayo proportionality ga meesha ka baxay proportionality-guna maaha isku dhignaanta hubka ee waa isku dhignaanta xaaladeed marka isku dhignaanta hubka waxayna u ahayn haddii kaba soo qaadbo qofku kuugu soo galo hubku la soo galo kaba soo qaadba baaskoolad tuugi adiguna waxa ka agdhowi uu yahay kaba soo qaadba amba midi baa kula soo galo adiguna waxa ka agdhowaaba baaskoolad kaba soo qaad waxa meesha imanaysa macnaheedu maaha qofkii inuu raadsado maadaama tuugu midi ku soo hujuumay macnaheedu maaha midi raadsay waxa weeyaan xaaladda baaskoolad xataa adeegsan kartaa waa inay noqoto xaalad aanad heli karin wax kale ay noqonaysaa marka waxyaabahaas oo dhan qofka mas'uuliyadda ciqaabeed bay ka leexiyaan si individual qofka inay ugu dhacdo ciqaabta mas'uuliyadeed marka haddii maxay hayday aan qofka xaaladihiisaas oo dhan la xaqiijinin ma dhawaan cadayma la helo qofkaas inuu waalna in la qasbay inuu naftiisa difaaciyo xaaladahaas oo dhan markii meesha badan qodobadeedna way sheegayaan waxyaabaha sheegay waxa kamid ah tan self principle of self defense markii sheegayaan waana khatarta iyo ficilinku isku dhigman marka waxyaabahaas oo dhan waxa la yiraahdaa waxyaabaha qofka mas'uuliyadda jinaayiga ka leexiya ciqaabteeda marka kulli intaas aynu ku soo koobi doonaa bal waxaynu qodobada kale ku sii xigeen insha Allah waynu ka soo hadli doonaa aad baan idin